السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو تهبشوا كوي لباطل بش سديدات. الحمد لله رب العالمين. فيديو كان برنامج مي أمان تيك توك عن كشاغة أيام أنت كبلابايا إن شاء الله تعالى عنوان كنا سدا أركيسي واي الحمد لله رب العالمين وأحبذا لايف وكم مغنى إن نصدق القلي فيديو يالمه الحمد لله رب العالمين حوغاير عاجز هايس كجري درى أن حوغا قرب كان كجبي الحمد لله رب العالمين برنامج كاس قبل ولا لا UK كنول أي قصة كانت قبل حالي أدي هذا وغنحي سبحان الله أقرسلان وإلهي قاتمنا نوصل بيو قف مؤمن لو ملايو أو شدانا جرو إلهي كما قلناي سبحان الله waxaa jiro walaalaha qaybtood inay walaal kula noqon ayaaba fiican oo walaalnimadooda iska maqnaato si maasha Allah qisada waxay ku bilaabanaysaa baartooyin badan ka dhigi doona haday gabadha YouTube iyo TikTok furtan qeer haday furana aniga u wadi doono insha Allah 10 daqiiqo inaan duubaan jeclahay muhiimadana gabdhahan walaalo waaye midda yar ayaa midda weyn daba dhigatay wadankan UK ku kala nool yihiin gabar hore u joogtay gabadha kale waa la keenay ninkeeda ma keenay qof kale ma keenay dawladda ma keentay ma soo taariikta I don't know qisada waxay ku bilaabanaysaa sidaan arin naxdin leh ay xal gabadhii sheegtay waxay ku bilaabanaysaa gabadha weyn waxay tiri walaalay adiga ilmo badan iyo wax watee da'da bedel adiga qofka weyn iska dhig ani qofka yar iga dhig muhiimadda u rooreysa intaas waay gabadha ma arki karto habeen maalin dad ay faafaanine way u imaanay gurigeeda buuq ugu imaanay way abiyusaysa waxyaalo badan oo abiyus oo ani aan la qaracmay ee ka sheekaysa gabadha alxaasil ugu dambeyn waxay tiri social service-ka UK ku dacweynaya wax ma taqaantid luqad ma taqaantid balan waxaan kaaga qaaday in ilmaha laga qaato maanta gabadha alxamdulilah waxay tiri weligay abiyuskaas ay weyn jirtay weligay way caan jirtay waxay dhahaysaa laa yaqrab walaa yaqtaba tahay saana tahay heblaaya ilmeeda kaa fiican hebelow ilmihiisa kaa fiican heblaaya saan dad bay ku mashquulsan tahay habeenii maalin alxaasil alcamuum waxay tiri walaalay maamada hooyaday iyo aabbahay way dhex taagan yihiin hooyaday waxay tiri gabadhan waa ka gardaran tahay amaansi kun iyo koo jeeraa la dhahay awlaadeedii aflagaadeynayay tiri walaalay waxaan dhahay shooshalka uma baahna ilma kaama qaadan karaan waxay kaa qaadi karta maleh gabadhii waa dhiirigeliyey codad ay iskula hadleen ay isoo duubtay isoo dirtay anigana ma jecli codadka ilaa mustaqbalka dambe ani gabadhi waa dhiirigeliyey waxaan dhahay TikTok furo YouTube furo stresskooda hadalkeeda qeyladeeda hore u socaan dhahay horumarka mindi laba afle waa social media si xun hadaa u isticmaashidna si xun way noqoneen haddaa si fiican u isticmaashidna si fiican waxaan dhahay si fiican oo caadi oo dastuur caadi ah iyo borogaraamyo adaaba qiso kaa buuxdaay ka sheekay iyo ku welwelin waxay kaa qaadi karta maleh waxay taqaanta waxa ku baratay iyada waxa ku samaysato ani gabadhi niyadda u dhisay idinkana comment hadaa ugu qori kartiin ugu qora bini aadanimo markay aragto wax lay wadaa duumo lay wadaa marka borogaraamka magacay usoo baxsatay gabadha ciwaankan oo kusoo qori doonaa waan kaa yaabay iga har ilaahan kaa magangalamiya wax saas ciwaanay soo qoratay marka waxa waaye hortoole walaal haddii la yahay oo qaangaar la yahay haddii wax laisku qabanayana walaalnimo laiskugu qabto haddaan laisku qabanaynina wadadaas ilaahay wuxuu u weynayay in la kala maro way ku badan tahay qurbaha gabdhaha walaalaha iyo wiilasha walaalaha qof shaydaan camina kasoo dhex boodo oo wiigba qof inuu saarnaada rabo wiigba qof ku booda wiigba qof wiig familku ku dhex booda wiig kasanku ku dhex booda wiig boqofku ku booda
saas ma fiicno waxay tiri ilmaha lagaa qaadanaa waagi hore waxay tiri qalqale igu ridi jirtay gabdhaa la sheekaystay wadna xanuuna igu riday debreshara igu riday dadkaa ii aqliyeeyey waxaa jiray tiri wiil walaalkay ah iyo gabar kale walaashay ah famil badanaa nahay waxaa wiilkaas waxyaalo badan oo dhaxal uu i tababaray si walaalnimo mararka qaybtood wuu ii turjumi jiray ilmaheyga mustaqbal kasta ay gaaraan wiilkaas walaalkaya ka dambeeyey ilaaha mahad leh ani waan dhiirigeliyey runaantii waxaa dhahay dowladda ku dacweey ilmaha iskuulka ha sheegaan ilmaha ha dacweeyaan ha dhahaan markaste maalintaa imaana waddankan ilaa hadda buuqay nagu haysaa hooyadan way naga abayustaa ilmaha ha sheegaan ha dhahay iskuulka ha u sheegaan iskuulkana dowladda haddii kale xafiiska dowladda raadi u sheeg dhibaatadaana qabaa dheh booliiska ribood garaay meel kasta waxaan dhahay ribood ka dhig waxa waaye qofka hadduu xishoon waayo alamtaro soo dhaafo qori weynaa laiskaga qabtaa saxaro waxaa la yidhi ul dheeraa laiskaga tiraa walaalka waxaa fiican in uu banaanka kala maro inay isxushmeeyaan in walaalnimo laisku muujiyo inay ugu hanjabto gabadha shooshal wax uu kaa qaadayo maleh shooshal ilmaha shuruudaha lagu qaataa xaqaa lagu qaataa waxay kaa qaadaysa maleh brobleemo badan ay gabadhii ilmaheedaba ay ku abiyuusaysaa ma fiicno walaashaa wixii ka qaldan sax walaalkaa wixii ka qaldan sax booska walaalnimada u gala hadaa lagaa waayo booska walaalnimada banaankaas ka mar ilaahay soomaalida sidii runtii ah dulmiga raaliya iskaga noqdaan dadka qaybtiis walaalnimada dadka qaybtiis wax kaleba ka fahmaan adduunkaa walaal ugu yahay qof kasta aqra camalkiisa ka horeeyo camalkiisa ilaahay qofur raxiimka ah dhib iyo dheef wuxuu kuu keeno ilaaha lagu shukriyaa faa'iidaa daaheshid alxamdulilah aldhaha khasaaraa daaheshid alxamdulilah aldhaha ilaahu adiga iga qaad cusriga ilaahu dhibta dheef iigu bedel ilaaha la tuugaa cilmiga alcilmu bidaa edab aa la yidhi cilmiga edabta ayaa ka fiican edab haddaada lahayn cilmi waxba kuuma taraay qofka waxaan arkay gabar dugsi iskuul iyo meelna la geenin oo iyada boosigaas ee baratay wax ku qabsatay ku meel martay ku tukato wixii xaaraan iyo wixii xalaal u kala soocan yihiin marka waxa fiican qofka wax yaqaano oo maanta kitaabka 114 haddaa dhamaysa adduunka dhan haddii gabar fiican lagaa dhahay heblaayo way fiican tahay hebelo ugu fiican yahay familkaagana u xun tahay waxay ku taraysa male number 1 gurigaaga waa aasaaska familkaaga asxaabay gacantaa xoogaa jabtay halkaan sidoo dhakhtarka yiri 6 wiig kadib insha allahu xoogaa qalooc haddaan u fadhiyo ama aan gacantaa xanuunayso xataa hadda markaa xanuun baabiya layla qoya markasta alxamdulilah marka waxa waaye familkaaga adduunka dhan haddii lagu jecelahay oo familkaaga caasi ku tahay oo dhibaysid oo taraamo socoto tahay ma fiicno adduunka dhan haddaa fiican tahay oo familkaaga ku xun tahay makuu fiicno adduunka dhan haddaa xun tahay oo familkaaga u fiican tahayna waxa fiican ilaahay wuxuu jecel yahay qofka afkiisa iyo adinkiisa laga nabad galo brogramkan hadday gabadhi furata waa kaas hadday furan weydana anaa maalinba kis intay iisoo dhiibtay ka hagaajinayo laakiin muhiimadda waxaa waaye layskuma hanjabo una sheeg dowladda sawirkeeda tusi nambar telefoonkeeda siiyaan dhahay anisaa ula taliyey guriga ay degan tahay iyo waxa dhan iyo adreeskeeda magaalada ay degan tahay sheeg weligeed adreeskeeda ma arkin dheh ma raba dheh halayga qabto way ii hanjabtaa harassmentii ay ugu samaysaa dheh ilmahaagana ha sheegaan adigana dacwo waa dhahay calanka UK hoos joogtaana wax ku dhibi karo iyo wax ku abiyuusi karo malahan dhahay aniga daaw dhisay wixii tabartayde waa u sheegay intaas way caani ha uf heblaa kaa fiican ha heblo hadda fiiri ani ilmo waaweyn waa walaalkay ilmihiis way yareer yihiin haddii walaalkay ilmihiisa la dhaho ilmihii aamino jaamacaday dhiganooyaan college dhigtaan way ka baxeen saan waay kan waay ilmihii gabadhii ku abiyuusi karaa aamina ilmeedi kaa fiican waa saasoo kale waxa waaye way jiran tahay iyadiyaa waxaan dhahay dhakhtar aad dheh walaashaa u sheeg way jiran tahay qof iyo waxba xiraa iyo dowlada kuu sheegaa maxaa kaa galaa la dhahaya sharciga waxaa dhahaya maxaa kaa galay marka waxaan dhahay dowladda u sheeg iskuulaadka markii la furo wargeli meel kasta oo dowladda ah
wargeli meel saaran dheh iska saar nimaan shantaada kaa reebin sharci kaa marayo walaalka hadduu walaalnimadiisa isaga garan waayo adigana ha garaninaan dheh intay fadhigaa kuugu imaan dowladda la socodsii iyadoo akhbaarkeeda lahay dhab shabaq ay marka gelaysaa marka intaas waay intaas insha allah borogramyo badan oon wadana waan iigala soo socodsiin doonaa waxaana u duwayaa youtube-keyga iweydii waxaa rabtid walaashiina aamina sharaf aamina dheeman tiktok youtube-ka aamina dheeman soo booqda insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iska reeb like share comment bye bye